Bismillahirrahmanirrahim. Waxay noo socday chapter-keennii ahaa trigonometry. Waxaynu hore u soo qaadanay dhowr cashar. Waxaynu ugu horreysiinay degree and radian. Waxaan ku xajinnay sida loola soo baxo sinka iyo coska iyo tanka. Iminkana waxaynu raadinaynaa wax la yiraahdo special angles. Special anglesku wax kale maahan. Waxa weeyaan xaglaha ay leeyihiin trigonometry 30 degree, 45 degree, kuwaas iyo baa la yiraahdaa 90 baa la yiraahdaa special angles. Saddexagalka haddaan soo qaato sidee loo soo bixi karaa 30 degree markay tahay sin iyo cos iyo tan. Waxaan sameynayaa waa qoranayaa marka hore givenkeyga aan qoranayaa dhinacyada aan haysto baan qoranayaa. Kadib markaan intaa soo dhameeyo waxaan sameynayaa horta givenkeyga markaan qorto waxaan isticmaalayaa trig yar baan isticmaalayaa oo la yiraahdo soo ka iyo to. Waxaan ku kala helaynaa sinka iyo coska iyo tanka. Waa trigonometry functionadii. Marka theta-dii waxaan haystaa 30 degree, opposite-kii waxaan haystaa 1, hypotenuse-ka waxaan haystaa 2, adjacent-kii waxaan haystaa radical 3 sida kor uga jeedaanba. Marka iminka solution-kan toos u gelayaa xalka baynu raadinaynaa sin iyo cos iyo tan. Marka sin theta waxaa lagu helayaa opposite divided by hypotenuse. Opposite-kii 1 baa haysatay, hypotenuse-kiina 2. Coska adjacent-ka iyo hypotenuse-ka isku qaybinaysaa radical 3 oo waxa weeyaan halkaas waa error yar baa ku jira. Halkaas marka aan marayno waxaanu sameynaynaa tanka halka error yar baa ku jira. Errorka yar waa ka saaraynaa tanka wax lagu heli jiray. Waxa lagu helay opposite-ka oo loo qaybiyo adjacent-ka lagu heli jirnay. Opposite-kana waa 1, adjacent-kiina waa radical 3. Xisaabtu way saxan tahay laakiin qaacidada khaldan. Qaacidadana dib uga sii karnaa waa caadi. Dominator iyo numerator waxa la yiraahdaa hooseeyaha iyo koreeyaha. Baynu waxaan ku dhufanaynaa radical 3-ga oo conjugate ku ah. Marka radical 3-ga haddaan ku dhufto haddaan radical 3 ku dhufto waxba ka bedeli maayo radical 3. Haddaan radical 3 ku dhuftana radicaladaas la baxaya 3 baa ii soo haraya. Marka waxay noqonaysaa radical 3 divided by 3 bay noqonaysaa xisaabta caadiga ah. Tan 30-na haddaa ku eegtid waxay ku soo baxaysaa radical 3 divided by 3 haddii sida loo eego, haddii kana jajabiya ku soo baxaysaa. Marka sin iyo cos iyo tan markaynu eegayno 30-ga markay yihiin mar half bay tahay. Sinku waa half, cosku waa radical 3 divided by 2, tanku halku yahay radical 3 divided by 3. Marka 60-kii baynu haddana u galaynaa. 60-ka wax saa u sii dhib badan ma ahan. Opposite-kii, adjacent-kii iyo hypotenuse-kii baan qoranayaa iyo qiimahoodii intay ila ekaayeen kaliya markaan qorto waxaan u galayaa xalka iyo sida fudud aad uga shaqeyn kartid ay macquulna u tahay. Marka givenkeygii haddaan qorto theta-daydii waxaan haystaa 60 degree saa u jeedaan. Opposite-keyga waxaan haystaa radical 3, adjacent-keygii waxaan haystaa 1, hypotenuse-keygii waxaan haystaa 2. Marka wuu ku beddelanayaa sinka qaacidadiisaan qoranayaa. Opposite divided by hypotenuse 60 markuu yahay waa radical 3 divided by 2 oo opposite-kii waa radical 3, hypotenuse-kiina waa 2. waa halka baa laga keenay radical 3 divided by 2 iyo half iyo markii lagu leeyahay. Marka saas ula soo baxaysaa. Cos 60 oo ku beddelanaysaa kaliya adjacent-ka iyo hypotenuse-ka. Ba adjacent-kii 1 buu leeyahay, hypotenuse-kiina 2. Marka sin 60 iyo cos 60 iyo tan 60 waa sidaa. Halkaasina waa tan 60, sin 60 maaha. Waa tan 60 oo opposite-kii adjacent-ka radical 3 divided by 1 bay noqonaysaa. Halkaasna waa radical 3. Insha Allah waxaan ku xijin doonaa 45 iyo 90 sida looga shaqeeyo.